hadday suuragal tahay marka waxaan rabaa halkan inaan fariin kale ka gudbiyo musharaxiin madaxweyne ayaa maanta hadlay waxayna ka hadleen hanaanka doorashada musharaxiintaas waxaa la yidhi dab kara haddaa aragto dhirag kara haddaa aragto waxaa yidhi dab baa ka hooseeya soo maa maamulka doorashada dadka gacanta ku haya waxaan rajaynaynaa inay dadkaa hadlay u dhaga nuglaadaan qofka musharaxa xuquuq ayuu leeyahay musharaxiintuna ma kala xuquuq badna musharaxiinta guddoomiyaha baarlamaanka inay kala xuquuq bataan ma rabno musharaxiinta musharaxa madaxweynahana inay kala xuquuq bataan ma rabno ogaada haddii la dareemo dadkaa waxay ka qayliyeen annagana waa la aamusanna dadkaas maanta hadlay yaan nagala dabageyni waxaan arkaynaa wax badan xishoodku xanuunka badan mararka qaar xishoodku kaa tagsiiyaa intaan xishoonayno oo aan aamusannahay yaan loo malaynin inaan wax qaldanayn wax badan baa hanaanka ka qaldan sistamka wax u socdaan wax badanaa ka qaldan marka waxaan rajaynaynaa haddaan la helin laba qof hadday isqabato qof u dhaxeeyoo kala qabta haddaan la helin waa la ceeboobayaa annagu weli waxaan nahay inaan la ceeboobinaan rabnaa ayagana waxaan leenahay usha tooxa ha ka badina baarlamaanaa jira meeshaan sharci ah oo la doortay doorashaa dhacaysa inaan laga badbadin oo adinkuna aadan ka badbadin ayaan rajaynaynaa oo handadaadda iyo dhaarta aan laga badin waxa aad ku sintaan waxaasaa qaldan ee halla saxa dhahdaan haddii la sixi waayana nidaam kale tallaabo kale oo ku xigtaa furan laakiin meeshay ku dhammaa lahayd adinkuna ha ka bilaabina musharaxiinta sidaasaan leenahay dadka laga cabanaayo amba hanaanka laga cabanaayona faragelinta ha ka daayaan hanaanka doorashada intaas waxaan isleeyahay meeshaan waa mudneed maxaa yeelay saaxiibkayba musharax waaye in musharax kale looga heliyo ma rabin marka warkaas musharaxiinta guddoomiyaha baarlamaankana waan u dhahay kuwa madaxweynahana waan u dhahay aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum